shirweynaha qaran ee wada shaqeynta xeer ilaalinta iyo booliska Soomaaliya oo muddo 2 maalmood soconaya ayaa maanta waxa uu ka furmay magaalada Muqdisho ee xarunta dalka. Shirkan ayaa waxa ka qayb galay gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka, wasiirro ka tirsan xukuumadda, hanti dhowraha guud, xildhibaano, taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed, taliska ciidanka asluubta iyo sidoo kale xeer ilaaliye ka socda dowlad goboleedyada dalka. Shirkan ayaa waxaa looga arrinsaday sidii loo xoojin lahaa wada shaqeynta xeer ilaalinta iyo booliska si sare loogu qaado hufnaanta hay'adaha cadaaladda iyo la dagaalanka arrimaha musuqmaasuqa. waxaana ay sheegeen wada shaqeynta laamaha amniga iyo xafiiska xeer ilaalinta guud ee qaranka in muhiimad gaar ah ay u leedahay bahda garsoorka dalka. laakiin marka si sax loo wada shaqeynayo oo si sax loo wada baarayo hal yool laga wada gaaraya waana rajeynayaa insha Allah taala inay halkaas ka sii adkaato intaan joognana waa adkeynaa hadda kadibna waa sii adkeynaynaa. wada shaqeynta booliska iyo xeer ilaalinta haddii ay u dhacdo sida ugu saxsan waxaa suurtagal noqonaysa in laga hortago faldambiyeedyada oo khatar aad u weyn ku ah bulshadeena iyo badqabkeeda. runtii oo dhamasanahay dhammu habeentiisa waa mid muhiim ah iyaduna waqtiga lagu jiro shaqada gacanta lagu hayo waa mid la rabo in la fiiriyo nolosha maanta jirta in la jaanqaadi karo. xeer ilaaliye aadan kaga mahad celinaynaa laga bilisaan waana u baahnayn inaan bannaanka intaan iskugu imaano shaqada aan iskugu tagno bannaanka aan ku faraqayno si cadaaladda dadka muwaadiniinta ah oo loo shaqeynayo bannaan cadaalad fiican ay u helaan oo bannaanka looga wada shaqeeyo. markii la fiiriyo waxaan leeyahay anoon sii fogaanay meesha ayadaa fiiro gaar kitaabkiina oo dhan meeshu yaalla u imaada wixii saxanna ka qaata wixii qaldanna. bilahaas haddaan joogo siday u wada shaqeynayeen iyo mushkiladda shaqadu ay leedahay iyo culayska iyo caqabadaha jira iyo maxaan idhaahdaa mushkiladda haysata ayaan arki karaa muhiimadda ay leeyihiin labadan hay-adood inay wada shaqeeyaan si joogto ah. sidaas awgeed waxaan rabaa inaan ka mahad celiyo halabuurka cusub xeeralyaha guud iyo taliyaha booliska gobolka shaqadii la qabta 4 bilo ugu dambeysay. xeer ilaalyaha guud ee qaranka Dr. Suleymaan Maxamed Maxamuud ayaa ka hadlay muhiimadda shirkan uu leeyahay iyo sidoo kale in xoog la saaro tayeynta wada shaqeynta hay'adaha amniga iyo xafiiska xeer ilaalyaha guud ee qaranka. xafiiska xeer ilaalyaha guud ee qaranka wuxuu mas'uul ka yahay hagista baarista dalka iyo korjoogteynta baarista booliisku hayo mas'uuliyadda sharciga jideeyo siiyay wuxuuna hadda xilligan la joogo maalin habeen u taagan yahay waxa weeye in la xaqiijiyo mabda'a weyn ee dastuurka ku qoran xeerarkeena ku qoran qof kastoo muwaadin oo la xiro in 48 saacadood gudahood garsoore ku horto. sheekada marka la xiriirsan xafiisku si kadiisa wuxuu u tagaa saldhigyada dadka ku xiran yihiin rikoorka dadka la xiray iyo goobta la xiray iyo waqtiga la xirayna waa haynaa oo qof hadda 48 saac dhaafa jimcayaal waa soo geli karaan oo xeerkaba noo ogol laakiin 48 saacadood qof dhaafa oon garsoore la horgeynin xilliga hadda la joogo wax jira haday ahaan jirtay hadda xilliga way baabaaday. gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka ayaa fariin dardaaran u diray garsoorka iyo sidoo kale hay'adaha amniga sida booliska. kulamada noocan oo kalena runtii lagu falanqeeyo qawaaniinteedu maxay ka leeyihiin wada shaqeynta laga hadlayo waa muhiim weyn qofku inuu fahmo shaqada u taalo waa laga maarmaan marka aad iyo aad loo bogaadinaynaa xafiiska xeer ilaalinta soo qabashada iyo qabanqaabinta kulankan iyo kulamada kale lamida waxaana iyadoo mudan la bogaadiyo in guud ahaan hay'adihii kala duwanaa booliska dalka qaybihiisa kala duwan iyo xeer ilaalintii inay dhammaantood wada joogaan waana ku koobnay federaalkii. shirka ayaa 2 maalin oo socda waxaa lagu soo bandhigi doonaa doodo ka hadlaya baarista la dagaalanka musuqmaasuqa habka loo wajaho maxkamadeyntooda waxaana sidoo kale laga jeedin doonaa cilmi baarisyo la xiriira arrimahaasi. Cabdullaahi Maxamuud Amiin Cabdullaahi Qorshe warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho.